taliyaha booliiska degmada Gurceel Dhamma Usmaan Cali Huday ayaa maanta kulan gaar ah la qaatay odayaasha mootobajaajleyda ee ka shaqeeya degmada Gurceel. Kulanka oo taliyaha la yeeshay odayaasha mootobajaajleyda ayaa ku saabsanay sidii bajaaj ka shaqeeyay degmada Gurceel loogu sameeyay lambar lagu aqoonsado. Kulanka taliyaha iyo bajaajleyda degmada Gurceel ayaa ku soo aadaya xilli muddo dhowr jeer ah gudaha degmada Gurceel dad lagu la dhacay mootada nooceeda loo yaqaan bajaajta. Kulankan ayaa ku saabsanaa laba qodob oo ay ka wada hadleen taliyaha iyo bajaajleyda degmada Gurceel. Kow, xoojinta amniga. Taliyaha ayaa bajaajleyda kala hadlay xoojinta amniga maadaama bajaajtu ay kala weyn ka qaadan karto amniga magaalada marna ay qayb ka noqon karto amni darrada ka dhacday magaalada. Labo, in dhammaan mootooyinka loo sameeyo number. Taliyaha ayaa bajaajleyda u soo jeediyay in dhammaan mootooyinka lagu dhajiyo lambar lagu aqoonsado maadaama muddo dhowr jeer ah dad dhac lagu geystay mootada nooceeda loo yaqaan bajaajta. Taliyaha ayaa sheegay in mootada oo lambar loo sameeyo ay qayb weyn ka noqon karto amniga magaalada. taasina waxa ay fududeey kartaa in mooto kasta oo dhac geysato lambarkeeda la aqoonsado hadhowna booliisku ay soo qabtaan mootadii dhac geysatay. Sidoo aragta adigu ku soo dhawow kooriska maqal iyo muuqaal. Kooriskani waa kooris lagu baran doono hagaajinta maqalka iyo muuqaalka iyadoo la adeegsan doono softwareka Premiere Pro iyo Socrates softwareka Adobe Audition oo kamid ah softwarada caalamka ugu wanaagsan dhanka editing-ka. Wixii faahfaahin intaas dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada kaaga muuqda shaashada. Mahadsanidin.